Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaal meel walba oo joogtaan soo dhowaada. ilaahay ayaa ku mahadsan meel walba oo aad joogtaan soo dhowaada. dadweynaha kala duwan ee inaga xiran dalka gebi ahaantiisaba iyo meelaha kala duwan ee wadankeena ka mid ah, aad iyo aad aan idiga mahadcelinaynaa. dhiirigelintiin ayaan halkan kusoo gaarnay. waadna ku mahadsantihiin qaabka wacan ee daawadayaasha cusub ee kusoo biray janaalka iyo kuwii maalintii bilowga shaqadan iyo safarkan aan soo bilownay halkan aad iyo aad noga taxnaa. insha allahu walaalayaal muuqaalka sii faafiya janaalka oo sii gaarsiiya dadka kale, bulshada kale u baahan sii gaarsii. dadka aad taqaanido walaalahaaga gaarsii. dad badan oo soomaaliyeed oo arday ah ayaa maanta u baahan halkan kan ah. annagana ujeedkan ugu weyn waxaa weeyaan inay bulshadeenu ay helaan wax tayo leh, inay helaan cashiro tafatiran, wax badan ay ka fahmi karaan inay helaan weeyaan. insha allahu meel walba ay joogaan bulshada gobolada iyo sidoo kale meel walba ay joogtaan, insha allahu hala faafiyo laagtana muuqaalka insha allahu saara si ay dhiirigelin insha allahu inooga noqoto oo dadka kalena insha allahu ay u arkaan. aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaan ka bilaabaynaa caawa multiple alleles anapologenic inheritance ayaan ka bilaabaynaa. intaan cashirkeena kan caawa aan gelin waxaan insha allahu ka jawaabaa, maadaama su-aashaasi ay isoo weydiiyeen dad u dhaafay 100 kor u dhaafay isoo weydiiyeen, waan ka insha allahu ka jawaabaa. su-aashaas oo maxaa sababay macalin sifooyinka waxaad ku sheegtay inay yihiin sifo dominant ah oo awood badan. sifadaas oo ah sifa macnaha soo muuqata. sifada dominantiga waxaad ku sheegtay inay tahay sifada soo muuqata awoodda leh. sifada recessivekana waxaad ku sheegtay sifada laga awood badan yahay inay tahay. waayahay haddiiba saas aad u sharaxday, maxaa sabab u ah laba waalid ayaa isguursatay kaba soo qaadba macalin. maadaama laba waalid ay isguursatay, waalidkan wuu cad yahay, hooyadii oo kale aaday u caddahay, aabihin wuu madow yahay. sometimes waxaa la arkayaa macalin in ilmaha soo baxay qaarna ay caddaanayaan qaarna ay madoobaanayaan. hal sifa keliya laguma arkaaye waxaa soo bixaysa qaarna inay madoobaan, qaarna inay caddaanadaan, qaarna maariin ay noqdaan ayaa dhacayso. maxaa sabab u ah taasi? su-aashaasi marka haddii aan ka jawaabo waxay tahay, oo waxay rabaan dadka marka, maadaama ardayda aan ugu sharax marka hore dominantiga ayaa mar walba awood badan. labada sifo marka hooyadii aabihii, hooyadiina waa caddahay, aabihina waa madoob yahay. marka dadka waxay rabeen sida sharaxaada u dhacday inay u arkaan oo ah labadii sifo maadaama aabihin uu madow yahay, hooyadina waa caddahay, sifo ka mid in la qariyo oo ilmaha soo baxay wada madoobaan ama wada caddaadaan. somaa saasaa la rabay. maysan noqonine qaarna way caddaadeen, qaarna way madoobaadeen, qaarna maba noqonin maariin ayay noqdeenba. maxaa sabab waa marka macalin in kala duwanaanshahaasi da ka mid ah way madoobaatay, da'na way caddaatay, da'na maariin ay noqotay. markaa fiirsi marka ilmaha la dhalay guud ahaan daad waxaan ula jeedaa canuga la dhalay aan ula jeedaa. marka maxaa ugu wacan waa su-aashana horta fahanteena filaa dadka soo weydiiya ayaana aad ila fahmi kara. su-aasha marka waa sidaas oo adiga arinta u weynu markaa rabtay sidaas oo maxaa sabab u ah, maxay u imaawey sifo cadaan ee keliya ama maxay u imaawey sifo madow ee keliya, sidaas aad rabtay. waayo sharaxaad aan sharaxnay ayaa qaabkaas noqonaysa oo ah labadii sifo ayaa laga awood badnaanayaa. marka maadaama laga awood badnaanayo, sifadii awoodda leh ayaa soo muuqanaysa. hal sif maxay usoo muuqan weyse oo labadii sif inay soo muuqdaan, haddana labadii sifo kuwa aan ahayn loo arkaayo maariin ah. marka jawaabta haddii aan soo koobo warka waxaa waye jawaabta sifooyinka kalarka amaba sifada kalarka marka laga hadlaayo bayriska ay ka kooban tahay construstin bayriskeeda markaan firino sifadaasi kalarka ah dominant waa iyada. qofkan tusaale waxaa arkaysaa hooyadii aaday u caddahay, aabihina aada u madow yahay, amaba hooyadii aada u madow, aabihi aada u cad. maadaama saas ay yihiin waxaa arkaysaa labadaas sifo hooyadii aabihi ay kala wataan waa laba dominant waay. maadaama aabihin uu dominant u yahay, hooyadiina dominant ay tahay, waxaa ugu wacanaa leenahay labadii sifo dominantigna waan soo kala qaadnay. waxaan u kala qaadnay dominantiga 3 qaybood ayaan u kala qaadnay: complete dominant iyo incomplete dominant iyo co-dominant aan u kala qaadnay. complete dominant waxaan ahnay
وصفة أود لبا صفة أود له كم من تحي ما كرتاناني لبا صفة أود له صفة كم دين يصام وقتها لبا صفة مركا أركيس عنو كان هو إذا عدان كايد الشيء يا أباه مذوق أيرين أو مركل عنو كان مركا وعدا مركا هو إذا مذوق عدا أبين ومذوق عنو كي ما عد أيو نقد وعدا هذه وايه labadooda canuga kay ilaahay uu ka keenay wuxuu noqday canug cado noqday marka waxa uu wacana lana combined dominant waa labada sifo hooyada sifada ay sidatay oo cadaanka ah iyo aabaha sifada uu sitay oo madow ah laba sifo oo dominant waa laba sifo oo dominant ana waxay ka sii noqdeen combined dominant waxa labadii sifo awood leh in ay ka soo baxdo hal sifo oo kamid ah taas loo yaqaan combined dominant haye haddana hooyadu way caddahay aabihin waa madow yahay maadaama hooyadin ay caddahay aabihin uu madow yahay maxaa la rabay in mid ka mid ah la arko sama madow un la arko ama caddaan un la arko waaye lama arkin maariin la ark macnu qof canug maariin la arkay oo aadna u caddeen aadna u madoobeen oo maariin ah maxaa u wacnaydan taasna waxaa ugu wacan sifada madowga ay sifada cadaanka maadaama dominant ay isleeyihiin in combined dominant noqotay in canugaasi maariinka in combined dominant noqday waxaan ugu wacan in combined dominant inuu noqdo in combined dominant fahankeedu wuxuu ahaa labadii sifo awoodda badan lahaa in labadii sifaba ay soo muuqa waayaan labadii sifo markay soo muuqa waayaan ayaa waxaa loo yaqaanaa in combined dominant loo yaqaanaa sida caadi markaa ka hadlayno waayahay sidoo kale taas ayaa waxaa loo yaqaana in combined dominant loo yaqaano guud ahaan sidoo kale arinta kale oo ugu muhiimsan waxay tahay iyadana sidaa taas ayaa loo yaqaanaa codominant tan kaloo saddexaad iyadana codominant waa codominant dadka inta badan kuma soo daahirta laakiin lo-da iyo bisadaha iyo waxyaabahaas waa lagu arkaa codominant waxaa waaye labadii sifo awoodda badaleed inay isdhamaystiraan tusaale labadii sifoba inay soo wada muuqdaan tusaale markaan fiirino sac markaan fiirino sacan waa guduud dibigana waxaa waa caddaan wa siciyo guduud ah iyo dibigo caddaan ah ayaa dhalay sacan kale waxaa ka soo baxay sac sharaxan oo wata guduudna wata caddaanna wata ayaa ka soo baxay sacaasoo kale waxaa waaye labada sifa way ka soo wada muuqdeen codominant complementary waa isdhamaystireen labadii sifo kaasoo kale waxaa loo yaqaanaa codominant ayaa loo yaqaanaa asigana waa sidaas marka dadka isoo weydiiyey waxaa ugu wacanaa leenahay sifooyinka inay soo wada muuqo waayaan oo marna caddaan canug noqdo canugna madow oo noqdo canug maariin oo noqdo waxaa ugu wacanaa leenahay jawaabta ugu weyn kusoo koobaynaa sifooyinka oo madoowa sifadaasi madowga hooyada ay aabaha uu leeyahay iyo sifadaas caddaanka hooyada ay leedahay labadii ayaa waxay yihiin dominant labada sifo ee kalarka ayaa dominant ah taas ayaa ugu wacan marba in wax ka duwan la arko marna caddaan la arko marna madow la arko marna maariin la arko taas ayaa sabab u ah waayo cashirkeena kanina su-aashaas inaad ka bogsooteen ayaan filayaa maadaama dad badan ay soo weydiiyeen oo wax badan ay ugu soo celiyeen ardayda janaalka ku xiran iyo ardayda kaleba guud ahaan ay soo weydiiyeen waayo caawa waxaan qaadanaynaa qayb kaloo aada u xasaasi ah oo loo yaqaano multiple alleles alleelyada haddii ay bataan polygenic inheritance iyo sidoo kale waxyaabaha hindisidayaasha aada ku badan ee iska dhaxlo taasaan qaadanaynaa waaya sawfa ilaa hadda you have learned waad baratay sawfa ilaa hadda you have learned waxaad baratay about wax ku saabsan inheritance dhaxalka sawfa ilaa hadda you have learned waxaad baratay about wax ku saabsan inheritance dhaxalka wax ku saabsan taasoo involving ku lug leh two forms laba shay of alleles laba allele oo samaysantay ku lug leedahay for a trade ee sifada marka sawfa ilaa hadda waxaad baratay you have learned waxaad baratay inheritance dhaxalka taasoo ku lug leh laba qaabood two alleles of for a trade ee sifada ay yeelan karto laba allele maxaa erey allele waa soo qaadanay allele waxaa loo yaqaanaa separate forms waa maxay of the character sifooyinkii kala baxay loo yaqaano sooma ayaa soo baratay waxaad baran doontaa marka laba sifo kala baxsan oo kala madax banaana soo aragtay hadda waxaad baran doontaa sifooyin badan oo kala madax banaan ayaad arki doontaa saas oo warka guud ahaantiis
waayahay markaan sii wadno marka warkay some forms waxyaabaha qaar oo inheritance ee dhaxalka ka sameeya message ah sida blood groups in humans oo ka markaan fiirino are determined by waxa go'aami multiple alleles badan blood groups waa maxay dhiigga bini aadamka in humans dhiigga blood groups kooxaha dhiigga in human bini aadamka wuxuu ka kooban yahay ABO blood group uu ka kooban yahay half waxay leeyihiin markaa fiiriso 3 forms saddex qabood of alleles ay leeyihiin sometimes marar qaarna kol waxa loo yaqaanaaba AB marker kuwa qaarna waxay ka sameeyeen AB marker ay ka sameeyeen oo sifada AB ay ka sameeyeen waa qaabka marka fiirino A oo ah dhiigi A oo ah u taagan blood group A u taagan B u taagan blood group marka dad qaaraba noqdaba AB noqdaba Soomaa waa ka marka qaabkaas waaye note ogsoonaw waa ka note intaan gelin I capital A capital is a blood group type A wa I capital B capitalna marka fiirin iidan waxa weeyaan is a blood type B wa iidane I kaliya markaan fiirin waxay u taagan tahay type O ay u taagan tahay marka aydan maxay tahay macaan aydan waxa loo jeedaa hadii aan waxir idin cadeeyo walaalayaal aydaas hadaan waxir idin cadeeyo I capital hadii ay tahay waa has antigen I capital hadii ay tahay antigen ay leedahay waa has antigen sidoo kale I small hadii tahayna has no antigen I small hadii tahayna wax antigen ma laha wax antigen ma laha I small hadii tahayna has no antigen wax antigen ma laha qaabka waa inoo fahantaa I small hadii tahay has no antigen marka fiiri dhiiga markaan fiirino nuucyadiisa wuxuu noqdaa A dhiig A ah dhiig B ah iyo dhiig wuxuu noqdaa O ayuu noqdaa A antigen ay leedahay antigen ay leedahay soo kale B na antigen ay leedahay laakiin O no antigen wax antigen ma laha O wax antigen ma laha B antigen ay leedahay A antigen ay leedahay B antigen dhammaan marka maxay leeyihiin antigen laakiin O antigen ma laha maadaama O antigen ay lahayn waxa lagu matalaa I small lagu matalaa waayo macalno ereyga antigen waa xir noo taa macnihiisa ereyga antigen hadii idin tilmaamo waxa loo jeedaa waxa jiinkan qofka jiinka kale tusaale jirkaaga jiin kale lagu talaal oo ka madax banaan jiinka jirkaaga marka ama nooca dhiigaaga ee jiinka ku dhex jira dhiigaaga wuxuu diidaa in uu la falgalo jiinkaas kale ee ka madax banaan ee jirkaaga lagu talaalay ayuu diidaa maxaad ula jeedaa tusaale macaan waxaan ula jeedaa tusaale dhiiga markaan fiirino wuxuu diidaa hadda tusaale oo kale aad tahay ma ogolid in lagu soo shubo qof dhiigiisa uu yahay markaan fiirino waxa kaliya qaadan kartaa nooc oo waxa qaadan kartaa kaliya O ayaa qaadan kartaa iyo waxa kale oo qaadan kartaa B waxa kale oo qaadan kartaa A qaadan kartaa markaan fiirino guud ahaan markaan fiirino marka walaalayaal waxaad wax ka qaadan kartaa kaliya marka qof waxaad wax ka qaadan kartaa O iyo A bas ah dhiigaaga jiinka ku dhex jiro tusaale ayaa tahay sama jiinka marka dhiigaaga jiinka ku dhex jiro hindasidaha ku dhex jiro wuxuu leeyahay antigen leedahay antigen ay diidi oo aksi ku tahay diidi jiinkaas ku dhex jiro iyo anti ku diida wuxuu diidaa qof B dhiigiisa ina qaadatid waxa qaadan kartaa kaliya qof A ah iyo qof A kula ah ama qof O kula ah waayo O waxay tahay sababtu waxay tahay universal donor wa bixiyo guud waay O marka fiirino marka waa ila fahamtay sama ereyga antigen macnihiisu antigen marka la waxa waay jiinka dhiiga aawadatid nooca dhiiga aawadatid in uu diido wax kale dhiig kale qof kale dhiig kale wata nooc kale blood group kale wata inuu diido laguma shubi karo tusaale qofka A B kuma shubi kartid waa qalad waay laakiin qofka A B hadii uu yahay waa arki doona iyadana A B da universal recipient waay markaan fiirino
qaato guud waa a b a b iyo a kaliya kala ilaali waxaan ka sheekayno waa a oo kale ama b oo kale haday tahay b oo kale waxa qaadan kartaa b iyo o bas ay qaadan kartaa waayo o asi mar walba waa universal donor bixiyo guud waa laakiin qof a b ama qaadan kara b qof waayo way kala madax banaayin a b iyo b way kala madax banaayin waayahay inaa fahanteen filaa marka I capital maxay u taagan tahay dhiigan antigen ayda haday a capital haday ay wadato waxa waa qaabka marka fiiri hal mid ila fahan sidoo kale waxaad kale ila fahantaa hadii saan loo qoro laba qaab oo loo qori kara marka si ooga dhiiga ooga asiga mar walba waa recessive dhiiga ooga mar walba asiga maxaa waay recessive waay mar walba recessive waa laga awood badan yahay halkaas war ila fahan dhiiga ooda mar walba waxa waay recessive waa asiga midka maadaama recessive uu yahay waxa lagu soo muujin karaa kaliya I small ayda laakiin maxay qaab lagu soo muujin karaa marka walaalayaal markaan fiirino I capital waxa waay antigen has antigen I capital marka loo qoraayo antigen oo leeyahay waa antigen waa I capital markaan qorayno antigen ay leedahay waa I small waxa waay dhiig hadii I small aan qorno ama sheega has no antigen waxay la fahantaa marka ila fiirisaa marka I small marka waxa loo qaataa oo loo qoraa o dhiiga o na waxa waay recessive waay oogan waxa waay recessive waay markaan fiirino waa sifo laga awood badan laakiin marka fiiriso dhiiga eega iyo dhiiga b-ga iyo dhiiga a b-ba marka fiiriso saddexdooda waa dominant waay saddexdooda marka fiiriso waa dominant waay waliba a e b oo soo socdo waxa waay waxay ka noqonayaan type of dominant waxay ka noqonayaan codominant maxaa waay labadii sifaba inay soo wada muuqdaan waayo a e b tusaale waxa isguursaday hooyo a iyo aabe b ilmaha ka soo wada daahiro dhan waxay noqonayaan a b waayo sifada eega waa sifo dominant awood badan sida hadda aan jawaabihii ku sheegayna cashirkeena qaybta ugu horeysa su'aalaha la isoo weydiinay tusaale hooyadu waa awood ay leedahay maxaa awood leh sifada eega ee wadata dhiiga ay wadata ayaa maadaama hooyada dhiiga ay wadato uu yahay aabihin dhiiga u wata b uu yahay labadii sifo waa laba sifo awood badan ilmaha ay wada dhali doonaan oo dhanna dhiigooda markaan firino waa kii waaye ilmaha ay dhali doonaan oo dhanna dhiigooda markaan wada fiirino wuxuu noqon doonaa ab noqon doonaa marka fiir marka laba qaab loo qori karaa marka intaas ay la fahamtay sama oo recessive waay haye a capital b capital a b intaan maxaa waay dominant ay noqdaan waaya iyaga marka dominant maxaa loo qori jiray laba qaab is written loo qoraa homozygous iyo heterozygous haddii ay noqoto I capital markay sidaa noqoto marka sida caadiga I capital haddii sidaas ay u qorantahay aragtid waa homozygous waay sidaan ay u qoran tahay maxaa leenahay a homozygous waay eedaas maxaa waa a homozygous waxaa qoran I capital I small waxaa qoran I capital waxaa qoran marka halkan I capital markale aan gooni u qoro I capital ay kor saaran tahay I small a capital saana qoranba saana aragtayba maxaad leedahay marka tanna waayo sidaan qoran markale aan ku celiyo qaababka aan ku celiyo marka guud ahaan loo qori karo waxaa ku qoran I capital dib aan usoo bilaabo la soco I capital a capital inta maxaa qoran marka kaliya inta waxaa ku qoran marka I small bas kan marka sidaan markay tahay waxaa waaye eedan waxaa waaye homozygous waaye eedaas markaa firino homozygous dominant homozygous waaye waxaa qoran tusaale I capital a capital I marka waxaa kaloo ku qoran I capital a capital sidaa markay tahan waxaa waaye heterozygous eedaad waxaa waaye sidaa marka cafwan sida hore sidaan ayaa heterozygous raalli ahaada cafwan heterozygous sidaa markay tahay waa heterozygous sidaa markay tahayn waa
homozygous state waay. maxaa lagu ogaanaa labada ayaa capital leh saa markay tahay odan waxay u taagan tahay ayadan waxay u taagan tahay oo recessive ay u taagan tahay I small waxay u taagan tahay oo recessive ay u taagan tahay mujeedido qaabkaas ay noqonay marka waxaa aragtay marka sidaan oo kala hadan aragtay I capital B capital I capital B capital markaan oo kale maxaa waay B homozygous B homozygous B homozygous waxaa aragtay hadana I capital B capital I small B heterozygous tan oo kale idan maxaa waay waa inaad u fahantaa inay tahay B heterozygous B heterozygous soo ma jeedid qaabkaas ay noqonaysaa guud ahaan haye maxaa kaloo jiri kara oo imaan kara haddana sidaan oo kale haddaa aragtid ka waran marka laba aayo small aragtayba markaas maxay u taagan tahay ood marka maxaa waaye homozygous recessive ood maxaa recessive waa recessive maxaa loo qori karaa homozygous state bas loo qori karaaba sooma laba aayo small bas aragtayba homozygous state uu joogaa waa inaad saas ila ogaataa marka qaabka ay igula fahantaa waaye marka waa inaad guud ahaan saas ogaataa waaye figurkan waa ku arki doonaa aan isla fiirin marka caawa video naga dheeraan doonaa bal aan soconaba inaad fahanteen sharaxaadaas guud aan filayaa marka wuxuu leeyahay sajaa sida blood groups noocyada dhiiga oo kale markaan fiirin humans bini'aadamka are determined by waxaa go'aamay multiple alleles badan blood groups in human bini'aadamka wuxuu ka kooban ABO blood group waxay leeyihiin 3 forms of alleles ay leeyihiin sometime marar qaar waxay noqon karaan AB markers ama waxay sameyn karaan oo AB ayaa waxay noqon kartaa soo afaray karta ABO ay sama waxa afar ku soo noqon karo AB waana jirtaa oo waataan sheegnay AB dadka noqon kara ay capital waxa loo qori karaa marka blood type A capital blood type A IB waa blood type B haye an ayn maxaa waaye either I kale maxay u taagan tahay type O mujeeda I small waxay u taagan tahay type O antigen malaha waa macnaha O-dan maxaa waaye antigen malaha waana sababta keentay qofka dhiiga ooga ah inuu yahay universal donor bixiye guud waa sababta uu ku noqday waa yahay type O markaan fiirino is the absence waxaa ka maqan type O markaan fiirino is the absence waxaa ka maqan is the absence type O markaan fiirino type O markaan fiirino waa yahay waa halkan aan dib ugu laabto type O markaan fiirino is the absence waxaa ka maqan of AB markers sida AB camal wax uma sameyn karo oo qaabka u sameysmaan camal ma soo muuqan karo macnaha aadan oo soo muuqat biidoo soo muuqat ma qaabkaas camal maaha asiga marka qaabkaas camal ma aha asiga is the absence waxaa ka maqan AB markers oo maxaa waaye AB asiga macnaha AB sida AB wax u sameyn camal ma u sameyn karo oo macnaha ay u soo wada muuqdeen aadan ay u soo muuqatay biidoo ay soo muuqatay maya asiga hadii uu la falgalo eeda uu raaco recessive area dominant noqonaysa asir recessive oo noqona B uu raacay B-da dominant noqonaysa asir recessive oo noqona warka waa sidaas nodaad ogsoonaw alleelka kan I small is recessive uu taagan yahay to markaan firino I capital A capital markaan firino I capital B capital markaan firino however si kasta waxaan dhihi karnaa ha aatee I capital A capital waxay la mid tahay iyo I capital B capital are codominant codominant maxaa waaye waa sifooyin soo codominant si labadii sifo inay soo wada muuqdaan waa codominant blood type AB ayaan result from wuxuuna ka soo xasilay I capital A capital I capital B capital alleles oo ka soo xasilay therefore sida darteed markaa firino ABO blood groups markaa firin examples waa tusaalooyin oo both multiple alleles alleelyo badan ay leeyihiin waa and are iyaga codominant waa markaan firino guud ahaantooda as a shown sida noogula tusa figure 5.5 noogula tusi doono blood also soo kale haas waxay leeyihiin RH factor ay leeyihiin dhiig wuxuu kaloo yeelan karaa RH factor waxaa waaye waxaa laga soo gaabay markaan ka hadlayn guud ahaan amaba laga wadaaba RH kaas guud ahaan markaan ka hadlayno daanyeer weeyaan daanyeerkaasoo marka ahaa
laga fiiri tijaabo laga qaadi waaye marka qaabka iyo tijaabada si loo qaadayna cashirkeena kan xigaan insha Allah ku baran doonaa halkaas inoo joogto walaalayaal waa mahadsantihiin